السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمان ومضى صوماليات ميل والبقى أدونك كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحانكم آدي آد يا أمهات سنتهين ومضى صوماليات آدي آد يا دكتور أمهات علينا يا سان ولا شقيسان سيدا هوشن ولا وضان وإسكول كيني المستقيم وإسكول كاني وآدي آد يا أمهات سنتهين هوش هالكاس كسي وضع وإدين دعينا إن شاء الله تعالى وحان إلهي كبرينا إن أمضى الصوماليات ميل والبقى جوغان إلهي إنه ويحد نبقى أو هيستو أو كقاعدو إلهي ويحد نبقى أو هيستو إنه كقاعدو إلهي سبحانه وتعالى إذا بريا إلهي هيجا أقبله ما أنت وحان نو يمد ولكن إيمان حسين أيانا صوب بوقدي سي إسكولك أو محان كل هايته وفيرفيريو سي أو إسكولك أصوب بوقده حالة ديسة إيه عرورته إيه ماشى وحمرايان إنه حالة الله الصعدة أيو نوجي من عثمان إيمان حسين عثمان واي مركا آدي آد أيو أمها تسيني هاي إيمان وأنا سود دوينينا ونكون هتسيني هاي بوقشة ما أنت أو نصاب بوقضي أسجع روحي أو صار أركي أسجع أيا إذا لو بدأ جدونا آدي آد أيو أمها تسنتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. maanta waxaan soo booqday iskoolka Al-Mustaqim Foundation oo uu abaabulay walaalkan Cabdixakiin Cabbaas Iimaan. walaal waxaan ku leeyahay marka hore Ilaahay ka shakoow mahad adiga iskale sharafta adiga iskale ilmahan dhalinyarta ah garab istaagay horumarkooda mustaqbalkooda ka fikiray u fikiray ku xisaabtamay bilaabay diyaariyay lana rajeynayo inaa hor u sii wadid ilaa heer ma arkin oo mustaqbal fiican ay ka gaaraan noloshooda ay wax bartaan ay noqdaan kuwa hadhow dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaco. waxaa qabatay howl aad iyo aad u weyn aan yareen aan yasirneen ilaahay garabkaada ha galo oo garab istaagsannahay. intaas kadib waxaa maanta soo arkay ardayda iyo baahiyahooda iyo waxa loo baahan yahay sida kulligeen dhammaan aan ka wada warqabno. waxaa jiro baahiyooyin fara badan oo kala duwan marka wax macnaa maanta ma sameynayso haddii xabad xabad loo qaado laakiin way jiraan. halka midoon oo kaliya oo laga baahan yahay waxay tahay walaal qofkii awoodo hal qof laba qof ha ka faalo qaado mustaqbalkooda ha taageero ha saacido beri markay heer gaaraan farxaday ku tahay aakhiro ajraad aa ku leedahay. waxaan rabnaa inaan dhahno dhammaanteen hal mar Cabdixakiin howsha awoodid kaligaa ma ku tiid waa kula garab istaagsannahay waa ku taageersannahay waa kugu faraxsannahay ilmahana sidoo kale dhammaan macallimiintana waa u mahad celinaynaa howshay hayaan ilmaha oo ah ilmo aan ma arkin oo ii sheeg aabba la-aan qaarkood yihiin qaarkood hooyo la-aan yihiin oo ma arkin oo si maskaxiyan xataa ma arkin oo u baahan saacidaad u baahan deganaan u baahan ma arkin oo aragti ka duwan ardayda kale. macallimiinta ayagana waxaan leeyahay macallimiin aad iyo aad u mahadsantihiin howsha haysiin ma arkin oo ku dadaala sii wada haniyo jabinaha ilmaha yaa laga niyo jabin. anigana waxaa insha allah rajeynaa in aan noqdo kuwii ardaydan ma arkin oo kafaalo qaada qaarkood inta awoodo inta ummadani waxaan idin leeyahay ma arkin oo adigana sidoo kale dadaala ilmahan garab siiya garab istaaga baahiyaha iskoolka hala taageero baahiyaha mustaqbalkooda hala fiiriyo. ilmaha waa ilmihiini xitaa haddaadan dhalin waa Soomaali waa muslimiin marka waxaa idin leeyahay ma arkin oo garab iskoolka hala siiyo. assalaamu calaykum waraxmatullah. Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen. iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab. adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday. waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo weliba agoonta waa laga dardaarmay.
shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa